madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni golaha xildhibaanada golaha wasiirada gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada ganacsatada culamaa u diinka dadweynaha ka soo qayb galay especially gabdhaha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka booday oo doonayay si gaar ah inaan u salaamo madaxa boorka goolis Luqmaan Yare oo maanta isagana nagala soo qayb galay daadihinayana barnaamijka kan iyo Cabdisalaan oo cimaad ka tirsan ama bahda goolis annaga haddaan nahay haweenka waxaan ku dooranaa wax caruurta iyada waxa u fiican maanta waxaan arkaynaa in isku wada jaango'an yihiin waxyaalihii qoyska uu u baahnaa maxaa kamida waxaa kamida koow nabadgelyo waagii aan wadanka ka cararnay waxaan oga cararnay nabadgelyo xumo xamar aan ka soo cararnay alxamdulillah waxaan nimid Puntland oo dadka iyada joogaan nabadgelyana aan ku helnay maantay waxaan ognahay dhibaatooyinkii yaryara oo khawaarijka ay sameeynaysan wadanka in laga nadiifiyo taasaan ugu mahad celinayno dawladdeena uu daadihinayo madaxweynaheena Siciid Cabdullaahi Deni dadkeena qurba joogta ah oo banaanka ku nool oo dacalaha wadanka maxaa la yiraahdaa dunida oo dhan ku nool ma ahan inay istiraah qabaan waan la wada soconaa caruurtoodii qaar jeelashay ku jiraan qaar mar walba abuse baa lagu hayaa qaar maxaa la yiraahdaa jidadkay daadsan yihiin maxaa waxaasoo dhan ku kalif waxa ku kalifay markii hore inay qaxooti ahaan u baxeen markii dambana ay meel ay ku soo noqdaan oo ay ka heli karaan nabadgelyo iskuulaad fiican caafimaad maxaa la yiraahdaa lagu tashan karo maxaa la yiraahdaa amenities-kii oo dhan ay ka heli karaan inay ku soo celiyaan caruurtii maantay waxa farxad ah waxaan horta fiirin jiray Dar es Salaam meel la yiraahdo oo xamar banaankeeda ah oo qurux badan markii dambena waxa la yiri dad yar kaliya degi kara oo dadkoo dhan meesha ma wada degi karaan oo nabadgelyada ma fiicna waa sidaan maqlay waxaan u sheegayaa marka gabdhaheena meel walba ku nool oo wadankoodii aan ahayn walaalayaal waad u jeedaan maanta in aan helnay caruurtii meelaad ku soo celin kartaan horeyna waa u jirtay oo wadanka waa fiicnaayo barwaaqaa jirta annaga waa 35 sano qurbaha ku nooleen haddana waa joognaayo waxaan joognay wili caado dhowr iyo 20 sano ku dhawaadna waa joognaa waa soo noqonay laakiin ma ahan aniga iyo jiilkayga iyo wixii xoogaa iga yaryar ma ahane waxaan rabnaa in aan noloshii annaga waagaan yaryareen aan ku jirnay oo kale inay caruurtiina banaanka joogto aan isla ognahay inaad soo celisaan waxaad ka helaysaan halka kan dadkoodii ay bartaan waa number 1 number 2 diintii oo la baro tan saddexaad jeelashii iyo balaayadii jidka iyagoo daandaansan ay jiifi jireen ay ka nadiif tahay magaaladii guriyo sida hadda waxaan ku farxo ugu weyn waxa weeye ma la rabo damiin horta waxaad ogaataan gabdhaha ayaa caruurta dadka dibadda jira waa haweenka iyo caruurta annaga nin banaanka oo madax ah maba aragnaba oo reerkiisa jooga waxay fariistaan kafeteriyada iyo bahda goolis waxaan u sheegaynaa waxa idin soo noqonaya xaasas iyo caruur iyaga mas'uul iska ah oo gabdhaha mas'uul ay ka yihiin waxaan marka ku faraxsanahay inaydan ka rabin wax damiina waa ogahay collateral baa waxaad u haysataan guriga hase yeeshee waxaan ka maqlayay saaxiibkay Cabdirasaaq gudoomiyaha Salaama Bank in wax la saarayo xoogaa yar taa gabdhaha laga qafiifiyo si u soo noqdaan aad ha looga qafiifiyo sababtoo ah qofkii markuu ka soo guuro qarashaad badan uu gelayaa magaaladu waa ku cusub yahay
caruurta inay la qabsadaan ay u baahan yihiin marka waxaan idinka codsanaynaa in aad xoogaa taana ka qafiifisaan waxaan rabaa halka kan inaan oga diro fariin dhammaan gabdhaha caruurtooda ama qoysas ahaan ku nool adduunka daafihiisa haddaa rabtiin meeshii aad ku nooleedeen guriga soo xirta haddaa idinka leedihiin bal imaada annagaa idin soo dhaweynayno especially reer Puntland annagaa diyaar idin ah arka haddaad meeshii aad la dhacdaanna annagaa idin daadihinayno ilaa aad degtaan haddaa la dhici weysaana maxaad qasaarteen you are not losing anything waa noqon doontaan laakiin waxaan idinka codsanaynaa fariin halkaan idinka dirayaa anigoo ah wasiiradii haweenka walaalayaal soo noqda caruurta ha noo badbaadaan waxaan halkan ka arkaynay iskoolaad British school iyo wax la mid ah iskoolaad heer sare ah oo waxbarashadii aan hore u heli jirnay la mid ah inaad ka heli doontaan meeshan garantii weeye kaalaya airportkan idin ku soo dhaweynaynaa goolisaan idin geenaynaa bunuugtaan idin raaceynaa marti ma noqonaysaan ma wareereysaan qabiil uma baahnidin inaad marti u noqotaan kaalaya oo imaada oo wadankiina ku soo noqda caruurtana noo badbaadiya waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha oo runtii hadduusan isaga ahayn goolis groupku ma dhiirateen waxa kan maxaa la yiraahdaa investmentkan $500 billion ah waxaan rabaa inaad u mahad celiyo goolis family waxaan rabaa inaad u mahad celiyo dadka businesska ah oo runtii iyagana xabadka u tumay inay garab istaagi doonaan annaga haddaan nahay qoysaskana waxaan idinka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad in runtii aad soo dhaweysaan dadka guryo qurux badan waa aragnay oo runtii wali caadi isku dhadhow oo taasoo safety-ga ay fiican tahay dariska inay isku dhadhow yihiin fiican halkaasaan warka ku ekaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ka codsanayaa meel kastoo adduunka daafaheeda ka joogtaan gabdhaheenna Soomaaliyeed gabdhaheenna reer Puntland fadlan caruurta soo celiya imaada waan idin soo dhaweynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh